magaalada Laascaanood shalay galkii dambe waxaa ka daayay roob ay ku diirsadeen shacabka ku dhaqan magaaladu roobkan oo muddo saacada ka daayay magaalada Laascaanood ayaa markii dambe isu bedelay mid dabayl wata dabaylahaas ayaa keenay burbur soo gaaray xaafadaha iyo meheradaha ganacsi ee magaalada waxaa sidoo kale gudaha magaalada lagu arkayay xargaha dabka qaada qaarkood oo dhexdaadsan goobaha biyaha daadadka roobku keenay ay marayaan arintan ayaa keentay in guud ahaan magaaladu ay weedo adeegii korontada muddo kor u dhaafaysa 12 saacadood xaalka magaalada Laascaanood muuqaal ahaan xalay waxa uu ahaa sida tan shacabka magaalada ayaa cabasho ka muujay adeega korontada ee xalay ka maqnaa magaalada balse mas'uul u hadlay shirkadda xooga korontada ee Lesco ayaa sheegay in korontada ay hawada ka saareen sababo amni dartood ka gadaal markii xarka badan oo markaasi goobihii burburay ay lahaayeen ay soo dhex galeen daadadkii ku keenay waxyaalaha soo dhamay xarkii yaryar u soo degayay ee leerka ayaa go'ay kadibna daadkii oo magaalada maraya iyo xarkii baa isdhex galay markii aanu aragnay shirkadda leerka ay aragtay Lesco in khatar ay dadka ku jiraan oo ay dadku dhiman karaan xarkaha yaryar ee go'ay ee biyaha ku dhex jira leerka ayaan daminay waxaanu u daminay badbaadada shacabka magaalada ku nool darteed ayaan u daminay runtii kadibna waxaanu sameynay gurmad inaanu bal ku dadaalno in wax laga qabto shaqaalihii iyo gaadiidkii iyo dhammaan baan isu keenay shalay galab markii aanu mishiinada daminay magaalada shirkadda intay jirtay dhowr 10 sanadood waa sanadkii 14aad ma ay damin magaalada waqti xitaa saacad ma ay damin waxaana live 24 hour aan joogsan ama 24 saacadood baxaya ayaa sida aad ogtihiin dhinaca kale roobabkii xareyda ay waxay saameyn weyn ku yeesheen xaafadaha waaweyn ee magaalada Laascaanood kuwaasi oo noqday intooda badani goobo biyo fadhiisad ah maamulka degmada Laascaanood oo maayarka degmadu hormuud u yahay oo ka duulaya sidii arintaas wax looga qaban lahaa ayaa xaafadaha magaalada ka sameeyay hawlgallo markaasi lagu banaynayo meelo ay biyahaas daadku maraan runtii way soconayaan ilaayo muddo way soconayaan inkastoo runtii in dawladda hoos u qaban karo mar haddaan dadweynaha shacabka la shaqeyn waxaan leeyahay shacabku ha shaqeeyaan oo xaafaduhu isu tagaan oo biyaha iska sii daayaan laakiin waxa mushkilada haddii xaafadii biyo isku celiyaan oo xaafadii biyo isku celiso hadhow cidda la yarsanayaan aan u garanayno runtii jirtaa qorshe annaga iyo qolada aan ganacsado oo wadno runtii baa jirtaa waan doonayaan iska kaashano sidii wadooyinkan oo dhan runtii wixii wadooyinku way furan yihiin mushkilaadku waxa weeyaan ciid suuli iyo dhagax baa meel walba la dhigayaa taana waxaan oran karayaa waxa quri wax ka qaban kara runtii markooda waxaan leeyahay shacabku iyagoo marka hore iswaaci geliya xaafad walba haddii isu tagto runtii iyagoo biyaha iska sii daayaan dhagaxa qofka meesha ku doonayaan iska qabtaan waxaan aaminsanayna Laascaanoodba qoriga wada qoriga ka xumaateen reer biyo u galaana ma dhacdeen reer biyo guri ka dunyana ma dhacdeen laakiin waxaan arintaas way soo noqonaysaa haddana naga insha Allah talaabo qaadi doona nimca kasta nusqaanteeda leh roobkii shalay waxaa kale oo ay keeneen dhowr shil oo baabuur oo ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood sida warbaahinta u sharaxayo taliyaha nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Sool Axmed Muuse Saciid qaash waxa ka dhacay shilan baa ka dhacay roobkii shalay deeyawgii waa xaga dhacay shan shil afar gaari waa isku dhacday qof yar waa dhaawacmay adigu baabuurku leeyahay intii kale waa nabad qabtaa inna waa ka salgaroobay geesta kale waxa uu burbur soo gaaray kawaankii hilibkii ee magaalada Laascaanood roobkii shalay ka daayay magaalada ayaa ahaa mid inta badan bulshadu ay baahi weyn u qabtay sida wararkan ku hereynayna roobkan ayaa maansheeyay deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sool balse intii roobab ka daayeen magaalada Laascaanood ayaa waxa la oran karaa roobkan waxa uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka daayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool محمد عثمان عبد النور تلفزيون عالمي كالسن لاascaanood